الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أحمده أبلغ حمد وأشمله وأزكاه وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله بعثه الله سبحانه وتعالى على فترة من الرسل ففتح به أعينا عميا وآذانا صما، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وسائر الصالحين ومن سلك سبيلهم واستنى سنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، إلهي waxaan weydiisanayaa subxaanahu wa tacaala tawfiiqda inuu waafajiyo. waxaan u malaynayaa waa daalantihiin, xogay ma istaagi kartiin? istaaga إن شاء الله. هيا استاجا خير الله ينسيه. هيا فريستا. هيا استاجا فريستا. بارك الله فيكم. وحن كسوكو بيا الموضوع واديري هاي أركوبان باكسوكو بيا إن شاء الله تعالى. إلهي وحن ويدي سنة يا أنيجا أدينك بتوفيض ونوافجيو سبحانه وتعالى. توصنانتنا إلهي ونوافجيو جل وعلا. سجى وود إسكاله. erayga loo bixiyay mu'tamarka ciwaankiisu oo ah al-istiqaama, toosnaantu waa diinta dhammaanteed nuxurkeedii iyo aasaaskeedii weeyaan. waana eray kooban oo diinta lagu soo koobo weeyaan. yaquulu Allahu subhanahu wa ta'ala fastaqim kama umirta waman taaba ma'ak wala tadghaw innahu bima ta'maluna basir. إلهي سبحانه وتعالى أصغر نبي قال الله عليه الصلاة والسلام وأمر أجهدنا يا إلهي وحوليه نبي محمد عليه الصلاة والسلام كد ذال إنا توستيت يا الرسول قال عليه الصلاة والسلام حبيبك نقول توصناي عليه الصلاة والسلام وعودتك كانوا توصن بواها إلهي بعد دورتي عقلي سوات توصنا قرآنك إلهي كشيء سبحانه وتعالى ما ضل صاحبكم وما غوى. عقلgiisu waa toosnay, maskaxdiisu waa toosneed, caqiidadiisu waa toosnaa calayhi salaatu wasalaam, dhaqankiisu waa toosnaa. laakiin aayadda waxaa la amray asaga calayhi salaatu wasalaam lagu bilaabo fastaqim kama umirta. Soomaalidu waxay yiraahdeen dadka haddii rabo wax loo sheego dadka madaxda laga bilaabo waa la canaantaa. waxa weeyaan weeshu ha ku quusqaa dibiga gowrac weeshu ha ku quusqaatee sida la oran jiray. dadku marka waxa rabaa inay ku quusqaataan calayhi salaatu wasalaam. haddii nabiga asaga toos laga bilaabay ee amarka la siiyay dadka kale waxba yaalin weeyaan. waxa rasuulku toosnay calayhi salaatu wasalaam. amarka nabiga loo jeediyaa amar buu noo yahay, waa tusaaleheena calayhi salaatu wasalaam. asaga ayaan ku dayanaynaa laqad kaana lakum fi rasuulillah uswatun hasana. amarka marka asaga laga bilaabay. arrinta saddexaad oo keenaysa waxay tahay qofka daaciga ah ee dadka diinta ugu yeeraya intii uusan dadka kale u sheeginin waa inuu asagu awal iska bilaabaa. waxa weeyaan qofka asagu naftiisa inuu iska bilaabo weeyaan. wafaaqidu shay la yu'tiih. qofku haduusan waxba asagu toosnayn ee istiqaama uusan lahayn ee wadada xaqa uusan hayn cid kale ma anfici karayo. fabda binafsika fanhaha an ghayha fa in intahad anhu fa anta hakiim. rasuulka laga bilaabay calayhi salaatu wasalaam fastaqim balayl. luqada carabiga erga la yiraahdo istiqaamada fastaqim ergan oo kale quraanku adeegsaday aayaad fara badan. فاستقم كما أمرت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة في سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في سورة الأحقاف. آيات كدمانت استفعل استقامته الصومالي مركان فسرينه وحلقة يا باسيد اللغة العربية أصل كينا نكون فسرين لأنه استفعالك أما استفعلكم أما استفعالكم أما استقوم استفعل بيد أصل كده. waxay ku tusinaysaa shay qofka uu isku qasbayo ee uu doonayo inuu awoodiisa dhamaanteed bixiyo. aragu man alqiyam baa laga keenay asalka, waa toosnaan baa laga keenay. laakiin siiqadan waxaa loo doortay in la baro arrin muhiim ah. shayga la yiraahdo toosnaanta inaad toostid si ilaahay uu doonayo subhanahu wa ta'ala ma ahan shay sahlan ma aha. waxyaalo waaweyn baa ku hor yaala, caqabad baa ina hor yaala, shaydaan baa ina hor taagan, nafta ina hor taagan, adduunyo jacayl baa ina hor taagan, hilmaan baa ina hor yaala. qofku waxa laga doonayaa awoodahaas ka horeeya dhamaanteed inuu jiiro ayaa la doonayaa. ee ilaahay inta tala saarto subhanahu wa ta'ala أو مارتي أرنتان كود أو دلالة
kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga asoo ka duulaya oo isku hubeeyay inuu ka gudbaa la doonaya saadaradeed baa loo doortay siyaaqada ah ifastaqim baa leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam dibadda ayadu maxay daba dhigtay fastaqim kama umirta leeyahay si lagu faray qofku soo doonayo ma su'aal baa imaanaysa haddaan doono inaan toosnaado see u toosnaadaa weeyaan maxaa u dhaxeeya toosnaanta iyo toosnaan la'aanta maxuu yahay miisaankaygu maxuu yahay quraanku ma ka taginin arinta noocaas maaratay ee waxa la yiri fastaqim kama umirta la kama tuhibbu ant u toos sidii lagu faray saad jeceshay ma aha aayadani nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxay kamid ahayd aayadihii ka ciraysiyay cirada ka soo saaray shayabatni huud wa akhwaatuha nabigu calayhi salaatu wasalaam suurada huud baa cirayga soo saartay iyo saaxiibadeedu nabigu calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay ilaah baa wuxuu amray inuu tooso nabiguna amarka ilaahay waa fulin jiray calayhi salaatu wasalaam saas marka waxay keentay dadaalka uu bixinayo habeenkii qiyaamul leylka uu taagan yahay qaama hatta tafaddarat qadamahu calayhi salaatu wasalaam nabigu waa istaagay habeenkii qiyaamul leylka ilaa lagu inta barareen ay dildilaacaan markii la weydiiyay maxaad saas isugu dhibaysaa alays alam yaghfir illahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar aw alam tughfar laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar dembiga kii hore kii dambe soo laguma dhaafinin nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam afala akunu abdan shakuran calayhi salaatu wasalaam miyana noqonina adoon alla maartay ku shukriya jalla wa ala marka rasuulka amarka la siiyay ayuu dadaalaya meesha ugu dambaysan macsuum buu ahaa waa ilaalsanay laakiin wadada hayba lagu leeyahay yaan haka bixin khadka haka bixin wadada toosan ee ku geynaysa maartay jannada iyo ilaahay raali aanshiisa subhanahu wa ta'ala wadada allah qoray subhanahu wa ta'ala wadada allah dilaaciyay jalla wa ala ووضعت أولاه القرآن كشيء إن فربنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه إلى أويراد وضعت ويان أو مارتي معالم تدله بوسس كدله ومارتي القرآن كي حديث ويعدين أيام هذه الرسول كأمر كالسياء عليه الصلاة والسلام قرآن كأيضا طبيعي وكب حيو أننا وانا الأمرين توصنه أسأل بركاس الله أطفال يري فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ذاتك توبت كيني أو صلى بتي dadku shirki bay ku jireen nabigeena ka hor calayhi salaatu wasalaam waa soo laabteen allah u soo laabtay waa islaameen ar-ra'iil al-awwal min sahabati nabiyina muhammad calayhi salaatu wasalaam ayagana waxa leeyahay adunkuna toosa leeyahay fastaqim kama umirt wastaqimu kama umirtum yadoo kale weeyaan waman taaba ma'aka balij cidii ku raacdana waxa toobad keento asarka waxay tahay quraanka hadii nabiga amar la siiyo calayhi salaatu wasalaam ummadiisana waa la mid way soo galaan laakiin meelaha qaarkood hoos baa looga xariiqaa lil ihtimaam muhiimad oo la siinayo daraadeeda waxa kamida meeshan oo kala kamida waxa arkaysa quraanka ayadoo leeyahay ya ayuha nabiyyu idha talaqtum an-nisaa rasuulka lagu leeyahay calayhi salaatu wasalaam wal khitab al muwajjah lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam huwa khitab lil ummatihi illa idha istuthniya nabigeena wixii loo jeediyo ummadana waa loo jeediyay meeshan marka waxa ku fileed nabigeena loo jeediyo Soomaha calayhi salaatu wasalaam توس ما دام أسجل يري لكن لقوم كافتوني ومن تاب معك لير عدي توستي أو صول قطي أو إسلامتي وضد قادنا وحق أيقون حط توسين بالله إليه سبحانه وتعالى وأين يتوسان مركو على الدنيا إلى الشيخو إن مهمة إلى هذا استقامة نبينا وكلام نقول كرينه عليه الصلاة والسلام نبينا عليه الصلاة والسلام معصوم بوها نبينا وعبادة بدناي تصالوا نوعها مجال كسته لكن وحن الدنيا إن أسكت إنه أسجع إن تصالك دينا عليه الصلاة والسلام oo sida u toosnay oo kala rasuulkan u toosno wadadiisa aan qaadno intaan awoodana u leedahay wixii naga dhaadhacana ayad kale ba ilaahay ku yiri fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu hadii si boqolkiiba boqol aad keen weysiin ee dhaadhacooda ka yimaado ilaahay dibdibdaas weydiista subhanahu wa ta'ala marka waxaan bashar baan nahay waa gafaynaa waa kufaynaa waxba si naga noqonaya waa hilmaamayna wa khuliqal insaanu daciifa soo ilaahay yiri insaanka waa la abuuray asagoo taag daran ilaahay soo yiri marka insaanku ma aha mid kaamil ah لكن هذا وحنا قاعد دعان إلهي وحنا نفري وضدنا ما تكسح لهين ما دام عن نور نهاي توبت كين كأيو حسك إلهي إيو عبادوين كأيو ضاعوين كأيو أي إلهي نوكب يا سبحانه وتعالى أنك آيات القرآن كوحلو بالله بساس فاستقم كما أمرت ومن تاب معك كبعد وحلقها الله وضدك الأيام لو جود بي محا استقامة كسهور كذا محا كان قفك وضد إنه كبحه أي إلهي كهالله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ضغيانku waa xawayaan istiqaamada ku soo horjeeda waxa weeyaan waa wadada laga baxo weeyaan khadka oo laga baxo ilaahay uu tilaaciyay subhanahu wa ta'ala marka had gudbinina leeyahay ilaahay waa idin la socdaa waa idin arkaya waxba kama qarsoona qofka istiqaamada toosnaanta sabab waxa ugu ah marka ilaahay qalbigiisa ku weyn yahay subhanahu wa ta'ala oo og yahay innahu bima ta'maluna basir ilaahay wax alla waxa sameynaysi waa og yahay waa ku og yahay kama qarsoona
dhulka haddaad hoos gasho iyo haddaad maarta habeen gasho iyo haddaad habeen socoto iyo maalin haddaad socoto haddaad saaxiibada iska qarido iyo haddaad maaragtay kombiyuutarka inta gadaal fadhiisato baaswoord ku xirato ama telefoonkaaga ilaahay waxba kama qarsoona subxaanahu wa tacaala sawaa'un minkum man asara alqawla waman jahara bihi waman huwa mustakfin billayl wasaaribun binnahaar yaclamu khaa'inata alacyun wamaa tukfi suduur ilahay wuxuu og yahay ishu waxay xaddo qalbigu waxuu qarsado wax kastaba ilahay waa og yahay subxaanahu wa tacaala ilaahay baa mahad iskale inuu keligiis yahay bimaa tacmaluuna basiir ilaa asagaa basiir ah oo og qalbigana waxaa ku jira jalla wacala adigu ma garanaysid saaxiibka kula fadhiya qalbigiisa databasekiisa ma daalacan karaysid dhinaca ninka kula fadhiya laakiin rabbi uu keli tahay subxaanahu wa tacaala waa og yahay ilaahay jalla wacala kama qarsoona wax kama qarsoona haddii ilaahay uu qarxin lahay qalbiganaga waxaa ku jira hadduu qarxin lahaa noloshu nolol nooma noqoteen ninku hadduu ogaan lahay xaaskiisu waxay ku fekerayso ama xaasku ogaan lahay odagu bal inuu laba naagood wax kale ku fekerayo ayaa ma garanaysaa hadduu ogaan lahaa nolol ma noqoteen waa qarxideed nolosha dhammaanteed laakiin ilaahay baa noo asturay noo qariyey ilaahay baa asaga keligiisa waa basiira qofka muuminka markuu inuu ogaadaa ilaahay inuu la socdo wax alla wixii ku soo dhaca waswaas ba allah ka dhige ilaahay og yahay subxaanahu wa tacaala markii intaasi ilaahay uu sheegay ayaa wuxuu sheegay cabsida ilaahay waa kow qofka waxaa suway ka mid tahay istiqaamada sabab u ah walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum annaar arrinta labaad ee qofka ka saarta khadka waxa weeyaan inuu qofku u leexdo dadka gaalada ah oo ku daydo caqiidadooda qaado dhaqankooda yeesho waxa weeyaan kooxdaas oo loo leexdo xaggooda loo leexdo ayadana waxa weeyaan waa asbaabaha keena qofkuna wadada ka baxo ikhwaani hadalkan oo soo gunaanada darfihiisa waa dheer yahay ariga la yiraahdo toosnaantu diinta waxba kama tagayso qof wuxuu ka toosaa ugu horeynta qalbiga uu ka toosaa dibadeed carabka qofku waa ayuu ka toosaa dibadeedna dhaqanka iyo sulukiyaadka ayuu qofku ka toosaa toosnaan marka la yiraahdo qofku hadduusan qalbiga ka toosin ee caqiidadiisu aysan toosnayn ee maaragtay akhlaaqdiisu aysan aaminaadiisi waxa maaragtay qalbiga waxaa dega aaminaaduna ayadaa acmaasha soo saarta acmaashu waxa weeyaan qalbiga waxa laga aamino waa mirihii ka dhashay weeyaan miro ka dhashay weeyaan walidaalika waxaa la yidhahdaa alqalbu malik walacdaa'u junuud qalbigu waa hogaamihii xibnuhuna waxa weeye waa ciidankii wuxuu amro ayuu farayaa soomaali waxay yidhahdaan weel kasta wixii ku jira ayuu dhiidaa baa la yidhi qofku sida qalbigiisa iimaanku ku yahay ayaana dhaqankiisuna uu noqonayaa marka waxaa la doonayaa qalbiganaga inaan maarta ilaalino su'aal fara badan baa imaanayso dadku isweydiinayaan bini aadamku in fara badan oo ka mid ihi waxay isu haystaan inay toosan yihiin beerta inay ku jiraanna waa dhici karaysa nin shirkiyaad ku jira oo ilaahay ciidan ahayn caabudaya oo gaalnimo ku xidaystay ayaa wuxuu isu haystaa inuu toosan yahay waana mushkilada ugu weyn waa meeshaan bayaan nin walba qumanihiisa ayaa qoorta ugu jira Soomaalidu ay yiraahdeen nimankii yahuud la oran jiray waxay yiraahdeen jannadu anaga noo xiranta oo cid yuhuuda mooyaane cid kale ma gelayso laana anaga toosan anaga saxa shacabullah almukhtar baan nahay waxay yiraahdeen nahnu abnaa'ullahi wa ahibba'uhu waxaan nahay ilaahay adoomo ilmihiisi iyo kuwa jeclay baan lahayn ma garanaysaa qofka waxay sheegtay inuu toosan yahay buu sheeganaya jannadana la yadkhul aljannata illa man kana huudan bayraada jannada ciidan yahuudayn gali mayso kirishtaan waxay sheegteen sidoo kale illa man kana huudan aw nasara macna nasara waxay yiraahdeen nasara iskale jannada ay iskale nasara asalkoodu waa shirki iyo kufri bakay diinta bedeleen waxay caabudayaan ilaahay ciidan ahayn waxay ilaahay u sheegeen inuu wiil leeyahay waxay ilaahay ciisa waxay u sheegeen inuu ilaahay yahay ilaahayna wuxuu laqad kafara alladina qaaluu inna allaha huwa almasiix ibn maryam marka aayaadka quraanka waa farabadan yihiin ciidan ilaahay bay caabudayaan laakiin wuxuu aaminsan yahay asaguna ahlu janna yahay marka hadda la hadasho wuxuu leeyahay anaaba jannada iska leh anaga nool ku talagalay maartay xaqiiqada anaga hayna ciisa daraadanadiiba ma garanaysaa loo dilay oo loo daldalay dambigana dhawaana ka qaado wuxuu ku akhrinaya oo maartay ku sheegaya marka nin walba qumanaysa qoorta uga jira quraanku wuxuu ilaahay ka hadlay subxaanahu wa ta'ala khatarta ay leedahay qofku inuu wax iska aamino oo iska hididiisho nin waxa arkaysa awliyad duushan ay oranaya awliyad duusha ayaan ahay ninka dadka ugu fiican baan ahay haddaad aragtay dhaqankiisa iyo diintiisa uga fog yahayna waa la yaabaysaa marka qofkaasi waa sheegasho qumanaysa qoorta uga jira maxay tahay waxa kala saaraya yaa toosan iyo yaan toosnayn wadada saxda yaa haya iyaan hayn waa su'aal weyn oo qofka muslimka inuu isweydiiyo nin waxa dhici karaya bidca dhexda uga jira iyo khuraafo dhexda uga jira haddana soo haysta inuu sunno ku taagan yahay dhici karaysa
waxaa dhici karaysa nin daalim ah oo maartay dunuub waaweyn gelaya inuu soo haysto inuu jannadii ku socdo xaggeeda u socda dhici karaya nin waxa arkaysa muslimiinta dilaya dhiigooda daadinaya inuu ku janno tago dhiigoodana doonaya muslimiinta maarta oo janno ku gaaro ayaa dhici karaysa oo soo haysta inuu maartay asagu kii toosan u yahay qumanisu koorta ugu jiro waxa dhici karaysa haluma jarra tusaalayaashu waa fara badan yihiin laakiin waxaan uga jeedaa qofku sabab ku ogaanaya ma toosanahay ma toosanaysan ku ogaanaya mas'aladaas waa mas'alo muhiim ah qofkan sharta aqoon hada jeer dadku waxa laga soo galaa waxa kamid ah sharta dadkan aqooni khatar weyn bay ku jiraan quraanku markuu ka hadlo khayr kaliya kama hadlo quraanku hadduu sharta khayrka sheego shartana waa sheegaa waxaad arkaysaa haddii ahlu janna la sheego ahlu naarna waa la sheega waa daba yaalin labaduba garanaysa maxaa loogu talagalay inaad laba dhinacba barato saxaabi xudayfa ibn yamaan baa wuxuu oran jiray كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن تدركني بأورانجر مارت رسولك الصحابة وحي ويدين جيرين وحيالا خير كانوا شرطا ويدين جير صلتوا محي وحان كبقى يا شرطا يا خير وحكامة به شر توقع يسير اللي يرادو أيان كعب سنة يا بأورانجر قفكو هادو عبادي سنة يو طاعي سنة يو توحيد كمارتا يكون واقعي وإنه يقان وحيالها برية وإنه يقانا وحيالها كسهور جيدة وإنه يقانا عماشة وحلو أقبل وإنه يقانا شروط وإنه قرانا يحدي كلا إنه توصص وتقل معه مركا توصنان تندو وحي أباهان تاينا العلم لنا إن أقوان لنا هاي وحي إلهي أونا أمري سبحانه وتعالى رسولك أونا أمري عليه الصلاة والسلام سادرات يا علماء وحي كويدا استقامته وإن هذا وحي قرعدت مدق يبلح منا هذا رقب بحنين وألا تروق الروغان ثعلب بينا وإن وضع حقا قادت إلهي سودة نبينا عليه الصلاة والسلام نبي جواب مسترد وحلو قياسه ويان وحي الصحان يوحى قلطن مسترد لو قياسه ويان هدي وحي كسر هرشة مسترد داسي صح نقول مايا مركا استقامة أصلكو قفك وقلب جيسة إنه عقيدة صح أي جلان هي آمنات صح أي جلان وحيالها استقامة خطرتك وقلبي جلوحة كمدة هدان كسر هذا صدقنه وحيالها اللي يرادو شركيات كقلبي جلون عيالك لدونه المسلمين توحى ترى وحنبي وكنت مع الشرك الخفي وآد وفافا مسلمين تدحيده وأنا شيء خطر أو مارت أعماش برية قفك مجرنسا خطرت وين له نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث كصحيح صار حديث أبو سعيد الخضري رسولك الصحابة أيوة وعديي عليه الصلاة والسلام سعادة وإهات وعديي نبينا عليه الصلاة والسلام كان مذكرا وكان واعظا عليه الصلاة والسلام saxaabada hadoo waaniyay wuxuu uga sheekeeyay khatar weyn oo ku soo fool leh mustaqbalka imaan doonta wuxuu ka sheekeeyay dajaal iyo khatarta uu leeyahay ayuu nabigu ka sheekeeyay calayhi salaatu wasalaam marka uu dajaal khatartiisii ka sheekeeyay oo saxaabada u sheegay uga digay calaamiisana u sheegay ayuu gurigiisa u galay calayhi salaatu wasalaam saxaabada nabigu 10 ka siiyay ama darsiga siiyay wax u sheegay waxay bilaabeen inay ka doodayaan dajaal khatartiisa goormo imaanaya xaq uga soo baxaya sidoo yahay inay iska ilaaliyaan daraadeed arrintii waxay bilaabeen inay ka niqaashayaan ama ay ka doodayaan rasuulku waa ku soo baxay calayhi salaatu wasalaam oo booskii fadhiya su'aal buu nabigu weydiiyay calayhi salaatu wasalaam maxaad ka sheekaynaysid dajaal baa ka hadlay nabi rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam idagaysto in akhwaf mimma akhafu alaykum indi min akhwafa mimma akhafu alaykum indi من مسيح الدجال الشرك الخفي يكون بكون عليه الصلاة والسلام أما في رواية وحيرنا سمايدين شيئا وحكى الشر بدن أو إن كجا بقى يو دجال ولو قعد سب بدن يأكتي ها يا رسول الله قال الشرك الخفي ورسولك عليه الصلاة والسلام دجال وحكى خاطر سن باجرة دجال نبي وقاي الصحابة ونسوق قارين عليه الصلاة والسلام دجال ومصيبة عامة لكن مصيبة خاصة ومسلمين تكفى فيصدحوا ضياجرته سورة بدن يقاب بدن إيمانيسا نبي وحور والشرك قرصون وأنا استوسس كويان برسولك عليه الصلاة والسلام قفكو هلقا شيغو هلقا يرادو أنا ما قرانيسا حب شهواتك نفتو تعيل كذا مدحنمة تعيلك موقشة تعيلك مع براتئيد هذا عبادوينك لو قلت تلقى لي إلهي إني خالص ونقضان سبحانه وتعالى أو إلهي صافي ونقضان عدك لإنا ذو حلوقو دراهي وحي كينيسا أعماشاسي إني برتو أي كينيسا هذا عملك وضع قشو أساس كيسا أي قشو إرادات كنية أي قشو عمل كاس وحو نقنيا هل بعاد نقول لسي أيو نقنيا مالنت قيامة قف كي ددالي نكي صومناي ما تورن ساعده بان صومي قبل سو صوتي markay qiyaamo tagto haday aragto inay eber tahay maart waxba meesha ool qofkii qiyaamo leelka u taagnay xaawo dhan haduu arko maanta marka uu tago inuu eber ay tahay waa meel waa qatar weeyaan istiqaamada
qalbiga waa muhiim qofku inuu qalbigiisa u baaro waa cid walba aan u fiirsano maartay qalbigeena sida uu yahay mas'alaas ma mas'ala casrigan aad khatar u ah oo aad u faaftay oo muslimka looga baahan ka fikiro lidalika nabigu alayhi salatu wasalaam saxaabada uu tarbiyeeyay ayuu ku leeyahay dajaal arintaana waa idinka khatarsanta anaga maxaad noo imaysaa saxaabada ka hadlaya waa raa'il awwal waa rijaashi maartay rasuulku baa rijaalun sadaqu ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا كوحد الله يرويان سبحانه وتعالى رجاش النبي او دياري بهايه كوحد الله كبقيا انيga adiga maxaad malanaysaa marka oo ducaafa ah oo masaakiin ah waxa weeyaan mas'ala khatar ah weeyaan acmaalkaada buriso daalkaaga waxba ka qaadin رب صائم ليس له من صيامه الا العطش والجوع ورسولك عليه الصلاه والسلام الله فربنا قف صومن oo soonkiisa waxba aan ka guranaynin baahi iyo oon mooyaane warubba qaa'imin laysa lahu min qiyaami illa sahar badana nin taagan caawadan oo aan maartay istaagiisa iyo salaadiisi waxba ka qaadanin illa daal mooyaane miro kale ka gurtay ma jirto daal mooyaane marka mas'aladan istiqaamada qalbigaahi waa shay muhiim ah jiddan inuu qofku ka fikiro waana arrin sahlan ma aha culimada islaamku waxa la yiraahdo naftooda si loo tarbiyeeyo quraanka markay u fiirsadeen waxay ogaadeen mas'ala aan sahlan ay tahay inaad u baahan tahay inaad islaylidid inaad magaranaysa acmaashada laylidid si aad hayyin u noqoto marka dambe oo toosid oo qof hayyin ah oo nafta ku hoggaansan tahay qaarkood waxay dhigeen maxamed ibn kadir iyo sraga lamidii 30 sano ayaan dagaal nafta kula jirnay bay yiraahdeen ilaa markii dambe ay hayyin noo noqotay maarta maxaad ka malaynaysaa nabiyullaahi ibraahim iyo dadkii waaweynayba nafta iyo shaytaanka ilaahay ka magangalaya subxaanahu wa ta'ala waxa ka magangalaya ragii waaweynay quraankuna in an-nafsa la amaaratu bisu naftuna xumiday dadka faraysa waxaasa lagu abuuray inxiraafka iyo leexashada iyo adduunyo jacaylka waa nafta shay aasaas ugu jira weeyaan ee qofku haddoosan tarbiyad helin haddoosan layli helinin haddoosan kitaabka iyo sunnada ku qasbin naftu waxa weeyaan waa ku siraysaa waana ka saad calaynaysaa ولذلك markay aad tarbiyowdo waa balil insaanu ala nafsi basira nin walba naftiisa asaa garanaya anu waa saaqaana adiguna waa istaqaana dadku ha ku amaaneen ha ku yiraahdeen waxa way hebel baata ha ku yiraahdeen hebel ba waxa ku qaban maaya laakiin xaqiiqadaada ayaad adna waa istaqaan anu waa istaqaana balil insaanu ala nafsihi basira nin walba asaga isgaranaya xaqada uu leeyahay marka cudurradana aasaaskoodaah waa inaan daaweyno kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga ku daaweyno inaan shaytaanka iyo shahawaadka nafsiga iyo jacaylkeeda iyo waxyaalahaasi sawla dagaalami lahayn waa inaan isku dayno san u toosnaano ilaahay acmaasha inaga aqbalo subhanahu wa ta'ala waxaan leeyahay mawduucu waa mawduuc dheer dabcan laakiin hadalkayga gunaanadkiisu wuxuu yahay istiqaamadu waa diinta islaamka dhan eray lagu cabiri karo weeyaan waa nuxurkeedii weeyaan istiqaamadu waxay u jeedaa inaad wadadii ilaahay waxiga soo dejiyay inaad raacdid aad wada kale aad raacinin istiqaamadu waxay u jeedaa wixii ilaahay ka reebay inaad ka hartid istiqaamadu waxay u jeedaa wadada aad salaadaha weydiinaysid markastaba ilaahay ihdina siraatal mustaqiim wadada toosan ilaahay uu nagu hanuuni aan alla weydiinsanayno weeyaan allahumma inna nas'aluka an tahdina ila siraatal mustaqiim allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين إله أنه مسلمين إنه أفصو تدكي وناكسنان إنه قد بدقي نبي محمد إله إنه قد بدقي إله حوت كيسا إنه ورابه إله دنبق إنه ضاف إله دنبق وارد كين ضاف إله سبحانه وتعالى حبالها إيا قبورها ونوره إله كتاب كودا بديك كسيه إله حباسة واسعي سبحانه وتعالى إله حوت كرسولك كورابه إله عالم كالنبي كسوه هو صار أنا قنا إله دنبق إنه الله ضافه عرورت الله إنه حفظيه dumarkana allaha xifdiyo dhamaanteed kuwa barakaysan allah naga dhigo cudurrada qalbiga gala iyo kuwa dusha sare gala ilaahay subhanahu wa ta'ala allah naga xalo allah qalbiga naga miiro allah ma garanaysa xaasidnimo inaga saaro allah xiqdiga inaga saaro ilaahay tususka inaga bixiyo ilaahay cudurrada qalbiga dhan inaga xal oo qalbiga inaga waxaad ka dhigtaa mid saafi ku ah subhanahu wa ta'ala rasuulka naga alayhi salatu wasalaam وحوير إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رسول وحوكش عليه الصلاة والسلام قفك قلبي سهدو وناكسناده هدو الله كعب أو قاله هدو الله كبعبستان أو قاله أو فريست قلبي قاسي إلهي نبي وحوش
dhaqankiisa dhammaantiis qofku inuu wanaagsanaanayo ilaahay qalbiga ha inoo wanaajiyo subxaana wa tacaala allah ha inoo xalo cudurrada allah ha inaga qaado noocyashooda kala gedisan allah inaga qaado inta jirana ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad degdeg allah ha siiyo inta caafimaadka qabtana caafimaadka la u kordhiyo ilaahu cudurrada faafa oo adduunka ku faafay ilaahu dhinaca inaga mari subxaana wa tacaala ilaahu baraska iyo judaanka iyo maartay corona iyo cudurrada xun ilaah dhinaca naga mariyo subxaana wa tacaala ilaahay meel kale allah ka tuuro meel kale allah ku sallado subxaana wa tacaala ilaahay muslimiinta allah ka badbaadiyo ilaahu qalbiganaga nuur geli ilaahu indhahanaga nuur saar إله قوات الضوامض هذا كعابد أذاه الله نقدك وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله